الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدومي كحينك قولها ديغانك xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta dawladda oo soo dhawaantii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa runtii ka soo qaybgalka kulankan aynu saaka oo taariikhdu tahay 22kii bishii 12aad ee 2024 aynu isugu nimi waxaan jecelahay runtii inaan halkan idinkula wadaago mudanayaasha golaha deegaanka inagoo isu dhan sida uu dhigayo qodobka 8aad ee xeerka gobolada iyo degmooyinka mudanayaasha aad doorateen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisaba waxa u bannaan in ay xilka aad u dhiibateen ka tanaasuli karaan markaa runtii anigoo ka duulaya qodobka sharci ee 8aad mudanayaal waxaan go'aansaday anigoo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Gabiley maanta oo taariikhdu tahay 22kii bishii 12aad inaan si sharaf iyo karaamo leh idinku soo wareejiyo xilkii aad ii doorateen 17kii bishii 6aad ee 2021 bishii 12aad ee 2024 mudanayaal saaka halka waxay isugu yeedhay inaan idinla wadaago inaan go'aansaday inaan ka tanaasulo xilkii meeyarnimo ee aad ii doorateen 2021 bishii 6aad 17keedii aan idinku soo celiyo iyadoo xeerka gobolada iyo degmooyinkeenu ku shaqeyno qodobkiisa 8aad farqadiisa labaad ay awoodii siinayso inaan haddii maamulka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisu hadday isu garan waayeen xilka inay si iskooda ay isaga casili karaan marka anigoo xeerkaa ka duulaya mudane waxaan si sharaf leh runtii idinku soo wareejinayaa xilkii ay doorateen waxaan rajaynayaa inaad waajibkiina ka gudan doontaan iyadoo xeerku sheegaya inaad isla fadhiga lagu doorto meeyarka oo goluhu isla garto marka waxaan jecelahay inaad codsiga iyo soo jeedinta iga aqbashaan waxaan jecelahay boqolkiiba boqol inaad ka mahad celiyo muddadii 3 sano iyo saayidka ayadii wada shaqeynay sida sharafta leh inuu soo shaqeynay aniguna si iskaya aan maanta u go'aansaday xilkaan muddada 9 sano iyo dhowrka bilood aan soo hayay inaan uga tanaasulo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinku soo wareejin doonaa xaggiina si aad codsigayga cod u gelisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinku soo wareejiyay